salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan waqtiga ha idin wacnaado meel kasta oo aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa Cakaari Media Facebook page iyo kanaalka YouTube-ka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shuruudaha lotteriga shuruudaha la iskaga rabo muuqaalkan waxaan ku faahfaahin doonaa 15 qodob ama 15 shuruudood oo la iskaga baahan yahay ama la iska rabo lotteriga inta u guda galin fadlan kanaalka hal sii share gareeyo muuqaalkan qof walba hal gaarsiin Soomaaliyeed inuu ka faa'iideysto like hala saaro Facebook and follow soo dheh Cakaari Media ayaa nagala socotaa waa maxay lottery inta u guda galin lottery waa sanad horta markii ugu horeysay waxa la bilaabay 1990kii waa baqti nasiib ama in Mareykanka lagu imaado qaab baqti nasiib ah dad kala duwan macnaha waa fiisa la siiyo ummadda dunyada ku sugan meel kasta oo joogtaan ay ka qayb galaan qof walba iyo nasiibkiisa marka waa diversity fiisa marka in fiisa la siiyo dad kala duwan macnaha sanad kasta waxa la qaataa 55,000 goorma ayuu bilowdaa marka sida caadada ahba 1990 ilaa hadda lotteriga sanad kasta wuxuu bilowdaa bisha October ilaa bisha November intaas ayuu socdaa muddo bil ah marka 1990 ayaa la bilaabay marka muuqaalkan waxa uu hadli doona barnaamijyo taxana ay ka soo sameey doona lotteriga iyo wax walba oo ku saabsan wixii su'aal aad rabtid ama u baahan tahayna waxa nugula wadaagi kartaa Facebook page-keena Cakaari Media sidoo kale YouTube-ka ay ugu reebi kartaa muuqaalo xiiso leh ay ka soo sameey doona su'aal walbana waa in ka soo jawaabi doona muuqaalka la sii share gareeyo page-ka follow soo dheh subscribe hal saar kanaalka marka u guda galeena 15 qodob ama 15 ka shuruudood ee la iska rabo lotteriga 2024 shuruudda koowaad qofka marka 15 qodob iska rabo u guda galeena shuruudda koowaad waxay tahay marka aad formka buuxsanaysid magacaaga oo saddexan waa inaad qortid last name-ka middle name-ka sida baasaboorka kugu qoran macnaha magacaaga oo saddexan macnaha shahaadooyinkaada iyo baasaboorkaada sida u qoran yihiin waa inay kugu qornaadaan macnaha last name-ka waa magaca awoowaha middle-kana waa magaca oo saddexaad magaca dhexe macnaha iyo name-kaaga caadiga marka magaca saddexan macnaha Soomaalida ku sharxo waa magacaagi magaca aabaha iyo magaca awoowaha marka sida ay kugu qoran tahay shahaadadaada ama baasaboorkaada la iska rabo waa qodobka koowaad qodobka labaad male iyo female qofka taa inaad cadeysa macnaha male waa dumar female ka wada macnaha waa dumar male-na waxa waaye lab iyo dhadig rag iyo dumar su'aashaas ama qodobkaasna inaad ka jawaabtid marka formka buuxsanaysid waa shuruud la iska rabo sidoo kale sanadkii aad dhalatay macnaha sanadkii aad dhalatay waa laga rabaa sida ku qoran baasaboorkaaga iyo shahaadooyinkaada macnaha inay kala duwanaanin inay islahaadaan bishii aad dhalatay maalintii aad dhalatay ayaa laga rabaa marka taasna qodobkaas waa qodobkii saddexaad oo la iska rabo oo waajibka ah sidoo kale qodobka afraad magaalada aad ku dhalatay waa la iska rabaa magaalada aad ku dhalatay mar walba magacyada inay islahaadaan u qornaadaan sida baasaboorkaada ku qoran ama shahaadooyinkaada marka magacyo kala duwan badana lama aqbalo waxana waxa saxaya computer marka sida uu quruxda badan inaad u sameysatid inay islahaadaan macnaha sidoo kale qodobka shanaad ee la iska rabo wadanka aad ku dhalatay ayaa laga rabaa qodobka lixaad wadanka aad ku dhalatay ma loo ogol yahay su'aashaas inaad ka jawaabtid yes iyo no macnaha su'aashaas wadanka aad ku dhalatay macnaha in DV lottery ama lotteriga uu xareysto ma loo ogol yahay yes iyo no waa inaad ayadana ka jawaabto qodobka toddobaad baasaboor ayaa la iskaga baahan yahay laakiin sanadkan wax baasaboor ah la iskama rabo sanadihii hore waxa la iska rabay baasaboor su'aashaas marka baasaboorka marka aad su'aashaas dooratid oo toddobaad qodobka toddobaad ama shuruudda toddobaad baasaboorka numberkiisa ayaa laga rabaa sawirkiisa baasaboor size ayadana laga rabaa marka laakiin sanadkan kuma jirto laakiin hadiiba uu ku soo baxo wajiga labaad ayaa laga rabi doonaa insha Allah marka baasaboorka sanadkan shuruudaha kama mid ahan su'aasha sideedaad waxa waaye sawir ayaa laga rabaa sawirka siskiiska marka wuxuu yahay 600 oo lagu dhufto 600 ama 600 times 600 siska macnaha oo lotteriga waa sawir loogu talagalay sawirkaas ayaa la iska rabaa macnaha siskaasna shuruudaas waa inaad buuxiso sida sharcigooda ku qoran oo website-ka ku jiro siska waxa la iska rabaa 600 oo lagu dhuftay 600 qodobka sagaalaad address mail waxa laga rabaa address meesha hadda aad ku nooshahay macnaha meesha ku sugan tahay oo aad joogto ayaa laga rabaa tusaale ahaan waxa jiro qof Soomaali ah oo jooga macnaha Kenya markaas mail address-ka meesha aad ku sugan tahay ayaa laga rabaa tusaale ahaan Soomaaliya aad joogto Soomaaliya hadii adoo Soomaaliya Kenya ama Masar ama Turki ama meel kale joogto waa xareysan kartaa mail address-ka marka meesha markaas ku sugan tahay ayaa laga rabaa ama wadanka aad degan tahay macnaha qodobkaasna waa waajib
qodobka tobnaad wadanka aad ku nooshahay ayadana waa la iskaga baahan yahay wadanka aad ku nooshahay macnaha Soomaaliya hadaa joogtid Ethiopia Kenya wadanka markaas u dhalataa laga rabaa su'aashan kale aad ku nooshahay su'aasha 11aad waa su'aal iska option ah macnaha waa su'aal option ah waa iska dhaafi kartaa waana ka gudbi kartaa su'aashaas marka su'aashaas 11aad macnaha waa option adiga iyo dooqaada waana ka jawaabi kartaa mana ka jawaabi kartaa laakiin su'aalaha kale 14 ah waa waajib su'aashan kale bis ayaa laga reebayaa su'aasha 12aad email address ayaa la iskaga baahan yahay email ama gmail ama hotmail ama yahoo waxa isticmaashid waa inaad qortid sida sax ah meeshii lagala soo xiriir lahay oo jawaabta lagu soo dir lahay waaye marka emailkaada waa inaad si sax ah u qortid macnaha email hadaa isticmaashid ama gmail ama hotmail ama yahoo ama wixii la mid ah sidoo kale education level su'aasha 13aad ama qodobka 13aad la iska rabo waxa waaye education level kaaga waa in ayadana si sax ah u qortid oo ka jawaabtid high school miya hadda ku jirtaa mise waa dhameysay some school jaamacado miya ka dhigataa macnaha some degree bachelor ma haysataa master ma haysataa marka su'aashan aqoontaada macnaha waa laga rabaa heerkee tahay haddii aadan haysan shahaado dugsi sare wax u dhigmo inaad leedahay ama xirfad ama 2 sano aad shaqaynaysa ayadana xirfadaas waa ku buuxsan kartaa marka shahaado ayaa meeshan gali doontaa hadaa shahaado haysana xirfad ama wax aad leedahay macnaha farsamo gacan ama shaqooyin aad soo qabanaysay laga rabaa marka darawal hadaa ahayd ganacsade hadaa tahay cilaansaar hadaa taqaanid macallin aad xirfad macnaha hadaa leedahay shahaadaas oo u dhigmataa macnaha qodobka 14aad oo la iska rabo lotteriga ama shuruudaha waxa waaye martial status macnaha xaaladda aad ku sugan tahay macnaha single ma tahay married ma tahay ma guursatay wax ma dhashay mise wax ma dhalin divorce xaalad furiin ma ku jirtaa macnaha su'aashaasna waa laga rabaa marka xaaladda ku jirta haddii aad caruur dhashay macnaha waa buuxinay qof walba magaciisa saddexan waa buuxinay da'do jiro formkaas hadaa wax dhalina single ayaa leedahay hadaa qof jeceshaana meeshaas magaciisa gelinay waa buuxinay haddii aad furiin ataana waa jawaabi marka su'aasha u dambeyso oo 15aad waxa waaye imise caruur ayaa leedahay marka yes iyo no haddii no dhahdid waa bis su'aashaas formka ku furmaayo hadaa yes dhahdidna magacyadooda saddexna gelin inta dhashay 5 6 7 wiil iyo gabdho waxay kala yihiin marka shuruudahaas ayaa la iskaga baahan yahay oo 15 ah sanadkan kuma jiro passport halkan naga socotaan waa Cakaari Media Facebook page iyo kanaalka YouTube-ka fadlan muuqaalkan hala sii share gareeyo page-ka follow dheh like sar kanaalka subscribe sar wixii su'aal u baahan tahay commentiga noogu reeb insha Allah waa ka soo jawaabi doonaa muuqaala ayaa ka soo sameyn doonaa update-kii ugu dambeeyay ee lotteriga iyo wax walba ku saabsanna waa idin la wadaagi doonaa insha Allah marka wax walba u baahan tahay commentiga noogu reeb insha Allah noo soo qara waa ka soo jawaabi doonaa halkan naga soco muuqaalo xiiso badan iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee lotteriga insha Allah lotteriga wuxuu furmayaa bisha tobnaad marka muuqaalo kala duwan ayaa ka soo sameyn doonaa su'aal walba soo weydiisiina waa ka jawaabi doonaa marka haloo diyaar garoobo insha Allah muuqaalkeeni halkaas ay ku egyahay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo Cakaari Media ka daawo arrimaha qaxootiga DV lotteriga immigrationka wararka qurbaha iyo fursado aad dibadda ku iman karto ama dalka uga bixi karto sidoo kale kala soco warar warbixino dhacdooyin taariikh falaqeeno iyo barnaamijyo kale oo kala duwan oo xiiso badan Cakaari Media war jiraaba cakaaru iman fadlan rukumo oo kanaalka subscribe sar siina share gare sidoo kale page-ka follow dheh like na sar mahadsanid